qof dhimana ma jiro ilaa saacadiisi ay dhamaato laakiin waxaan noo ballanaa inaan nala dulaysan waxaan ballan ku qaadaynaa ilaahay horti inaan dulmi dambe iyo dulinimo dambe ay sadhicin waxaad ogtihiin baxday duulaan ku yihiin cadakii hore mari jireen atanada ka jari jireen 4 wiil waana fiirsanayno maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen hal cadow leenahay isku dhacna aan u jeedno aysan dhici doonin jidkaan iyo jid dhowmeen in baxda laga weeraro ama meel kale laga weeraro tanna inaan difaacnaa rabnaa meel xagga naga xigtana argagixiso ma aadi doontaan aniga aabahay waa la dilay adeerkay waa la dilay awowgayna waa la dilay inta shacab baa dilay xoolo maliki anu maliki 8 wiil baan haboodo hadeer ku jira mid waa kan ciidanku la socda mid waa ciidanka lu jira mid waa ka halka fadhiya intaas waxa ii jira marka oo ii dheeraaday maanta xad ba ii soo galay xoolan xad ku aadaan waay xadkaas inaan ku aadaan raba xaddoon baan inaan diraan raba u dagaalamayo qabiilkayga iyo reer hebel iyo deegaan afwaax iyo kama midahan maadaama diinta aan leeyahay waxaan hayno dambi ku galay aysan jirin diinta ilaahay raba inaan u dagaalamo aan dhinto in la dilo iyo in hadda la iska kaydayna midaan ku noolahay ma jirto qofka mar walba geeriyo ku xukumayay waxa naloo sheegaa oo hadda aan idaacadaha ka dhageystaa dawladda murtadiinta iyo midda gaalada iyo ridada dawladda idinka ka socday ma muslimiinta mise wax kale oo dad muslimiin Soomaaliyeed aniga waxaan maqalsanahay Mareykanka in dad muslimiin joogaan mana tagin afkiisana ma aqaan waxaan rumaysnaa qofka muslimka sheegtay inuu muslim yahay haddii qof dadkan kamid ah Iraa gaalaan ahana lagama yaabo inaan u ka aqbalo inuu muslim yahay ilaa asaga sheegtay gaalnimeen anigu islaamka aan sheegay ilaahay marka hore igu lahaa inaan rumeeyo asagaan rumeeyay allahaas macmal maahan mid cid u samaysatay maahan waa allihii koomkaan lahaa waad sheeganaysaan inaad diin haysataan oo aad ku dagaalamaysaan diin oo aad dadka kula dagaalaysaan diin oo aad u sheegi jirtaan ummadda diin taasu been bay noqotay markaad 3 jir iyo hooyo umula oo birmageyda oo kuwii ilaahay maaragtay ii sheeg oo dambi dushooda una saarin markaad disheen kuwa kale oo ilaahay soonkii ka qafiifiyo oo salaadii ka qafiifiyo oo masaafurka markaad laydeen oo meel ku xirteen ayaa inaad bilaadiintihiin sheegteen sidaa darteed waxaan u cadeynayaa marka ummadda Soomaaliyeed shakhsi kasto gaar ahaan kuwa hiiraan kasi kale kuwa buliburto inaad u istaagtaan sidaad uga xuray lahaadaan degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin afar iyo laba meel walba u taagan yihiin war iska dulqaada dulliga waa dulli aanan diin haysan waxay sheeganayaan waa been ilaahay bay inooga fogaadeen dalkiina iyo madaxdiinu waxay og yihiin waxaad qabanaysaan waxay og yihiin inaad karaamada dalkiina iyo sharaftiina iyo sharafta ummaddiina inaad u soo jeedaan habeenii maalin inaad u dhimanaysaan inaad u dhaawacmaysaan waxaad tihiin mujaahidiin rasmi ah ayaa tihiin waxaan rabnaa inaad sidaas ku jiiftaan oo ku seexataan jihaad baad ku jirtaan kiina dhintana insha Allah jannu galaya kiina dhaawacana waxa waaye ilaahay baa dunuubtiisa uga dhaqaya wuuna bogsanaya wuuna guulaysanaya ummaddiinana sharaf iyo karaamo ayay ku noolaanaysaa